saldhigga guushu waa 5 kow qalbi furan u qalbi furnaa waxaad doonaysid inaad qabato wanaaji niyadaada wax walibana u qabo si qalbi furan oo niyad wanaagsan labo ujeedo cad ujeedadu waa shay aad u muhiim u ah nolosha qof walba waxa laga maarmaan ah inuu noloshiisa u leeyahay ujeedo oo u socdo inuu gaaro si ay u noqoto noloshiisa mid leh hadaf iyo ujeedo balse qofka aan hadafka lahayn waxaad arkaysaa asigoo aan meel gaarin oo na wanaagsan saddex qorshe hufan yeelo jadwal nidaami waqtigaaga dhig wax walba booskooda afar howlfulin toos ah u sameey waxaad doonaysid si toos ah hana dibdhigan ogow acmaasha ilaahay agtiisa loogu jecel badan yahay waa mid la daa'imo haba yaraatee shan wax walba aad doonayso inaad ku guulaysato joogteyntu waa wadada horumarka haddii aad doonayso inaad noqoto khatiib joogtee waa sidaasi guusha waxay noqon doontaa qofka horumarka sameeyay nasiibkiisa xooji doonistaadii sidaad u xoojin kartaa doonistaadii haddii aad doonaysid inaad xoojiso doonistaadii sameey arrimahan kow qanci naftaada ha noqon mid lawlaweeya baro ama baran xifdi ama xifdin khudbee ama khudbayni labo kobci maskaxdaada aqri wax badan oo badan see kuu noqoto sahayga habeenkii iyo maalintiiba saddex la jeclow naftaada nidaamka gurigaaga shaqadaada iyo noloshaada dhan xifdi xikmadani dhig wax walba booskiisa afar nidaam waqtigaaga yeelo qorsho saad ugu faa'iidaysato shan yeelo dad fara badan si ay kuu kaalmeeyaan inaad guulaysato la kaalmayso ayaga si ay kuu kaalmeeyaan inaad xaqiijiso hadafkaaga lix ku caawi qofka kale guusha haddii aad rabto inaad noqoto qof muhiim ah noqo mid wax xiisaynaya toddobo noqo mid wax filanayo maxaa yeelay ma guulaysanayo qofka quusta sideed ugu horeyn uguna dambeyn waa maxay xiriirka naga dhaxeeyo adiga iyo rabbigaaga waxaan soo sheegnay oo ku saabsan xoojinta kalsoonida haddii ay tahay xiriirka naga dhaxeeyo dadka mid jira xiriirka naga dhaxeeyo rabbigaaga uu yahay mid fashil ah wax walba waa fashil haddii aad leedahay tilmaamahan oo dhan xiriirka rabbigaaga naga dhaxeeyana uu yahay mid xoogan waxaan ku leeyahay bishaarayso ismahaagi waa khayr iyo alla ka cabsi walaalkaygiiyo iyo walaashaygii xus rabbigaaga mar walba una kaalmayso arrimahaaga oo dhan ka fogow ku caasintiisa ilaahay wuu ku waafajinayaa waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan fadlan subscribe leh gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeyo like saar haddii aad ka heshay lana wadaag asxaabtaada si ay kula faa'iidaystaan inta aan ku kulmi doono barnaamijka xiga waxaa idinkaga tegayaa sida iyo fi amaanillah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh